بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ah maalin khamiisa taariikhduna tahay 17 bisha shanaad 2018 ee miilaadiga kuna beegan 1 bisha sagaalaad 1439 ee hijriyada waxaad ku soo dhawaataan warka telefishinka BSS TV waa telefishin ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. qodobada ugu door karoon waxaa ka mid ah boqor Mayo Xuseen Abbo Aale Sheekh oo ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliya dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan. munaasabada bisha Ramadaan awgeeda afar mu'addimiin cusub oo ka howlgali doona masjidka xaramka ee Kacbada. safiirka Israa'iil ee dalka Turkiga oo laga eriyay dalka Turkiga. Donald Trump oo muhaajiriinta imaanaya dalkiisa oo ku tilmaamay inay yihiin xayawaano. warkii oo fisan boqorka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya boqor Mayo Xuseen Abbo Aale Sheekh ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan asigoo shacabka ku dhiirigeliyay in ay si weyn uga faa'iideystaan bishan ayna ku dadaalaan cibaadada bisha barakeysan ee Ramadaan. boqor Mayo Xuseen Abbo Aale Sheekh ayaa shacabka Soomaaliya ku dhiirigeliyay in qofka Soomaaliga uu garab qabto walaalkiisa si ay u gaaraan nabad iyo xasilooni waarta. ugu dambeyntii waxa uu boqorka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya boqor Mayo Xuseen Abbo Aale Sheekh Ilaahay ka baryay inuu soonkiis kale nagu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo. waxa uu yiri sidaan: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. amma ba'd waxaan ugu hambaleynayaa shacabka Soomaaliya dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaan leeyahay qofka Soomaaliga ah ha garab qabto walaalkiisa. waxaa sidoo kale u baaqaya shacabka Soomaaliya ay ku dadaalaan cibaadada bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaan Ilaahay ka baryayaa sanadkan sanadkiisa kale inuu nagu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya hambayga. يا بلاد الخير يا أرض النعم يا كتاب المجد يا مهد الشيم. يا بلاد الخير يا أرض النعم يا كتاب المجد يا مهد الشيم. كلنا نعشق ثراك كلنا نهوى سماك كلنا كلنا نفديك يا دار الكرم كلنا نفديك يا دار الكرم. madaxa labada xaram ee Makka iyo Madiina Sheekh Cabdiraxmaan As-Sudays ayaa go'aan cusub uu soo saaray ku sheegay in munaasabada bisha Ramadaan awgeeda ay masjidka Kacbada ka howlgali doonaan afar mu'addimiin oo cusub. afarta mu'addimiin ee cusub ee Kacbada ka howlgali doona bishan barakeysan ee Ramadaan 1439 waxa ay magacyadooda lagu kala sheegay in la kala yiraahdo: 1 Abdullah Ba'afif, 2 Ibrahim Madani, 3 Turki Al-Hasani, 4 Maxamed Al-Umari. Sheekh Cabdiraxmaan As-Sudays waxa hadalkiisa ka mid ahaa in isbedelkan cusub uu ka yimid dadaalada uu wado boqor Salmaan bin Abdul Aziz ee ku aadan labada xaram iyo sidii kor loogu qaadi lahaa shacairta Islaamka uu leeyahay sida uu hadalka u dhigay. afarta mu'addimiin ee bisha Ramadaan ka howlgali doona masjidka xaramka ayaa lagu soo xulay qaab tartan ah oo laga fiirinayay codkooda iyo cilmigooda ku aadan xagga ahkaamta diinta. safiirka Israa'iil dalka Turkiga u fadhiya ayaa laga eriyay dalka Turkiga kadib markii khilaafaad xoogan soo kala dhaxgalay dawladda Turkiga iyo Israa'iil. waxa ayna wararku ku soo waramayaan in safiirka Israa'iil loo diiday markuu ka dhoofayay garoonka Ataturki inuu galo qaybta madaxda loogu talagalay. waxa uu la kulmay baaritaan sida dadka caadiga
ee ka dhoofaya garoonka Ataturki. sidoo kale intuusan safiirka Israa'iil ka dhoofin dalka Turkiga waxaa lagu qasbay in uu goosto tikidka diyaaradaha si uu ula mid noqdo dadka caadiga ah ee safraya. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay muhaajiriinta imaanaya dalka Mareykanka inay yihiin xayawaano, sida uu muujinayo muuqaal ay faafisay wakaaladda wararka ee Reuters. sidoo kale kulan looga hadlayay arrimaha muhaajiriinta ee ka dhacay Washington ayaa Donald Trump uu sheegay in maamulkiisa ay ku howlan yihiin sidii looga tarxiili lahaa muhaajiriinta aan sharciyeysnayn ee ku nool Mareykanka dhexdiisii, kuwaas oo dambiyo kala duwan galay.